ku bilaabnay Soomaalida ku nool magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa ka carooday dil halka loogu geystay gabar 19 sano jir ah oo la la'aa muddo 3 maalmood ah. Allah u naxariistay Najmo Cabdullaahi Macalin oo kamid ah ardadii sanadkan ka baxay dugsiga sare ayaa ugu dambeyn meedkeeda oo ay ka muuqdeen dhaawacyo laga helay deegaanka Bonje ee magaalada xeebteedka Mombasa. ilaa iyo haddana waxaa gacanta lagu soo dhigay hal qof oo looga shakisan yahay dilka gabadha. haddaba si aan wax badan ugu ogaano gabadha meedkeeda la helay waxaan khadka telefoonka ee Mombasa kula xiriiray Xasan Bashiir oo kamid ah ehelada gabadha la dilay. gabadha waxay ahayd gabar student hadda soo dhigtay form 4 oo marka madrasada soo baxay oo gabadha C+ ay heshay gabar yar bay ahayd 19 bay jirtay 19 marka gabadha daadeed intaas ay ahayd. marka gabadha muddo intee dhan ayay maqnayd? gabadha waxay maqnayd qariib 3 casha waxay baxday 14 saac. gabar kale oo saaxiibteeda oo guriga ay la baxday oo meel la dhaho Mirtini bay la tagtay. xagee ku taala? waxay ku taala Mombasa markii hadda loo socdo wadadan xag ku baxayso. marka gabadha safar u jeeday meesha la tagtay marka gabadha telefoonkeeda waxay wacday gabadhii la dhalatay baa waxay wacday 12 meelaha ilaa 12 u dhacay telefoonkeeda marka 1 saac iyo 20 daqiiqo ugu dambeysay gabadha telefoonkeeda marka 1 saac iyo barna nimanka booliiska gabadha meedkeeda ka soo qaadeen meel la dhaho Bonje oo Mirtini iyo meesha u dhaxayso Jagaamo ee meesha gabadha ay ka dhuntay. yaa idin ku soo wargeliyay in gabadha meedkeeda la helay? gabadha marka arbacada sayta khamiista habeenkii khamiista la keenay meedkeeda iyadoo dhaawac isbitaalka Botris marka habeenkii meesha ku bariday gabadha meed ku dhimatay isna jimcada meesha ku bariday gabadha galabtii jimcada ahayd caraabeysay oo sabti soo galeysaan 12 barkan meedkeeda ka helna Botris. waxaad ii sheegtay in gabadha meedkeeda la helay uu dhaawacyo soo gaaray. xagee dhaawacyo ka soo gaareen? jirkeeda qayb kamid ah wajiga xagga dhinaca dhamanka ah meejankilida kale ilkaha oo afka hore ah dhaawacyo hadda kuwaas ugu weynayeen. marka sababta loo bartilmaameedsaday gabadha maxay idin la tahay? sababta loo bartilmaameedsaday kulli hadda wali ma garanin. gabadha hadda baaritaan baan ku haynaa baaritaankaas markaan bogno uma ogaan doonaa insha Allah. gabadha hadda ma la aasay? waa la aasay ha qabuuraha Juuda baa lagu aasay. marka ka ehelka gabadha meedkeeda la helay ahaan yaad uga shakisan tihiin inuu ka dambeeyay falkan foosha xun? waxaan ka shakisanahay gabadhaas ay sagootisay oo safarta aadaysay oo hadda lagu hayo magaalada Eldoret. gabadhaasaan ka shakisanahay. ma la xiray? way xiran tahay ha. marka ilaa iyo hadda maxaa tallaabo ah oo aad qaadeen? waxaan tilaabo qaadnay booliiskan ka report gareynay looyaraan qabanay marka hadda baaritaanka lagu jiraa. baaritaankaas ma rabnaa inaan ku ogaano kama hordhici karno hadda. maxaadna ka rajaynaysaan marka? inuu kulli khayr ku dhamaado ka rajaynaynaa oo la helo ninkii geystay qofkii dilka geystay dambiga geystay insha Allah in la helo maan hadda rajaynaynaa. kaasi waxa uu ahaa Xasan Bashiir oo kamid ah ehelada gabadha meedkeeda la helay oo igu waramayay khadka telefoonka ee magaalada Mombasa. aan Facebook oo eego dhageystayaasheena qodobkaas waxay ka yiraahdeen Cabdi Xareed Maxamed oo degan Luuq Ganaane waxa uu leeyahay gabadha Soomaalida isla markaana la la'aa muddo 3 maalmood ah oo la helay meedkeedii runtii waa arin murugadeeda leh oo walaac badan keenayso. waxaase muuqata in gabdhaha Soomaaliyeed ay wajahayaan xaalad huwanti la'aan ah oo la xiriirta badqabkooda. Cabdullaahi Xaaji Xuudi oo Yaaqshiid joogan waxa uu leeyahay gabadhaasi meedkeeda la helay kadib muddo la la'aa arintaasi waa arin naxdin leh waxaana marka waayadan dambena soo badanayay in qof inta la waayo waqti dambe meedkiisa la helo waana musiibo soo korortay. waxaan ugu baaqayaa dowladda Kenya inay baaritaankaasi ku sameyso meedkaasi.